المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين. الإسلام دين الدولة. السلام عليكم. waxaaynu maanta muuqaalkani kaga hadli doonaa geesigii dalka Iraaq, libaaxii dalka Iraaq, halyeegii muslimiinta mudane Saddam Hussein Allah u naxariistee hadaladii ugu dambeeyay ee uu ka jeediyay maxkamadda markii lagu xukumayay dilka daldalaada ah. markii uu maxkamadda soo istaagay Saddam ee ahayd maalintii ugu dambeysay ee maxkamadda waxa uu ka jeediyay oraahdaasi hadalladaas oo maanta qalbiyada dalka Iraaq wada xanuujinaysa. waxa uu uga digay dhibaato oo ah dhibaatada ay maanta ku jiraan balse idin kuma siin ee libaaxoodii dalka Iraaq waxa ay u xirxireen eeyaha cadawga si ay hilbihiisa u cunaan. mar la weydiiyay Saddam magaciisa ayaa waxa uu ku jawaabay ama uu xaakimkii xukumayay ku yidhi بالدستور الدولة سواء الدستور اللي وقعه صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي. anigu dastuurka dalka Iraaq waan xushmaynayaa laakiin dastuur oo buushka wax ku daray maahan midka aan xushmaynayo ayuu ku yidhi Saddam xaakimkii. magacayga waa macruuf mana kuu sheegayo mase buushka xun ayaa su'aalahan kuu soo dhiibay yaa xaakim. islaamka waa dawlad guuraysa adiga xaakim waxa halkaan u fadhisaa fikirka Mareykanka waan isognahay dhamaanteen ayuu ku yiri Saddam xaakimkii oo laba mar Saddam u diiday in salaada casr uu soo dukado ayuu Saddam fadhiga kala sarakacay ayuu yiri laba jeer waxaan ku weydiistay in waqtiga salaada casr la joogo waadna iska indha tirtay sabab كعبسن مايو خفنا حتى أديك يوحي لمتها وحن كلية أن كعبسنيا الله سبحانه وتعالى أيوكيري سادام حاكمكي مرء حاكمك هذا الكوع العليي سادام أيوحا وجوابي سادام حاكم أنا وما هي أرض ديكتي سكول كاغا يقول حشمي إن أنا هاي مدحوينها waxaan ku tusay dhaawacyada ay Mareykanku ii geysteen wali waadi aamini weysan tahay sababtoo ah buushka xun ayaa kugu yiri kelmad walba oo Saddam sheego yaa la rumaysan. hadallada iyo oraahda ay weli shacabka Iraaq xusuustaan Saddamna ay ku ilaabi waayeen ayaa waxa kamid ah markii uu Saddam yidhi dadka marqaatiyaasha ah waxa ay ka dhaxlayaan qol aan daaqado lahayn macnaha aan ula jeedo waad fahmi kartaa yaa khaatim ayuu ku yiri daanyarada markii ay ka qoslayaan geedaha korkooda libaaxyada wax cara ah uma muujiyaan sababtana waad garan. mar uu Bush iyo Barayska Israa'iil habaarayay ayuu waxa uu ku yiri nacalatulla Bush iyo Barayska Israa'iil waxaan ogahay in ay maxkamadan korjoogta ka yihiin laakiin maalin waxa dhacaysa aad ka shalay doontaan kitaabkan gacantayda ku jiro ayaan aaminsanahay waligayna aaminsanaa wax geeri ah kama baqayo laakiin Iraaq waxa aad gacanta u geliseen yahuud iyo kufaar ayuu ku yiri Saddam oo hadal jeedintiisii sii wata ayaa mar uu ka hadlayay wadamada Carabta iyo wacyiga iyo xaqiiqada xilliga ka jirtay ku yiri Carab oo dhan waa gumaystayaal kor laga haysto arag Sacuudiga arag Imaaraadka arag Kuwait iyo maanta Iraaq waxaan ka xumahay anigoo arkaya in dalkayga lagu soo duulay in ay dadkayga gacmaha iga xireen idageysa shacabka islaamku marnabaha ogolaanina in dalalkiina ay soo farageliyaan yahuuda iyo reer galbeedka ayuu ku yidhi Saddam oo hadalkiisa sii wata kana hadlaya sida ay reer galbeedku u iibsanayaan qalbiyada kuwa daciifka ah waxa uu ku yiri shacabka Iraaq shacabkayga Iraaqow ogaada reer galbeedku waxa ay iibsan doonaan qalbiyada kuwa daciifka ah si ay dalkiina ula wareegaan waqtigii rasuulka xataa waa ay jirtay midaas
الله سوين محكمة مركي وكل واقضي إلا دلدل يوغو دنبين مدحويني هوري إيراق أيو يري سادام إساقو آدو قيريسان الله وين الله وين الله وين إيراق ويجريسا سادام جيري كما بغيو قالوا أيادو شقيسان ودلكينا قعنتا أقلسين الله وين الله يا أبو ري أيان دبوغو نقونيا نعلت الله مريكان يوحي تاغيرسان جيردو واحق سادام وابا يا شعب إيراقو كدب إساقو صلاة سنة دكدي كتب كان آيضو كأغرستي أيا لدلدلي مالين عيد سادام حسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وها halka inoogu eg muuqaalkii aynu idinkaga diyaarinay qodbadii ugu dambeysay ee Saddam Hussein uu ka jeediyay maxkamadda maalintii lagu xukumayay dilka daldalaada ah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضل channelka subscribe saara hadii aad ku cusubtiin channelku waa channelkiina subscribe saara dhaqaajiya si aan idinkugu soo gudbiyo macluumaad intaan ka badan